على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني. السلام عليكم وحلقتي لبعض امتحانهني قضية فلسطين. حلقتنا maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah. Qodobada oo soo dhaweyn doona haddii ay beedmo fahanka aan ku haysano qadiyada Falastiin. Qodobadeena waxa ugu horeyn doonaa boqortooyada Yahuudu lahayd ee ka dhisnayd dhulka Falastiin 1000 sano ilaa 700 sano dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Waxay Cibraaniyiintii ku guuleysteen qarnigii 10aad ee dhalashadii Nabi Ciise ka hor inay qabsadaan gabiba dhulka Falastiin iyaga oo ka talinayay waqti aad u dheer. waxaana ay aasaaseen boqortooyadooda caasimad uga dhigeen magaalada Orshalim ama Qudus. hase yeeshee dhimashadii Nabiyullaahi Suleymaan kadib waxa ay u kala jabtay boqortooyadii Yahuudu laba qaybood. labada qaybood oo kala ah boqortooyada Israa'iil ee waqooyi oo ay caasimad u ahayd Samba iyo boqortooyada Yahuuda oo ay caasimad u ahayd Qudus. markay taariikhdu ahayd 721 dhalashadii Nabi Ciise ka hor waxaa gacanta Ashuuriyiinta ku duntay boqortooyadii Israa'iil ee waqooyi. sidoo kale waxaa gacanta Kaldaaniyiinta ku duntay boqortooyadii Yahuuda markay taariikhdu ahayd 586 dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Ashuuriyiintii iyo Kaldaaniyiintii kadib waxaa xukunkii Falastiin uu gacan galay Beershiyaankii, iyagana waxaa xigay Giriigii iyo Farashooyinkii Alexander ka Weyn. Giriiga kadib waxaa qabsaday Roomaaniyiintii markay taariikhdu ahayd gabagabadii qarnigii 1aad ee dhalashadii Nabi Ciise ka hor, waxaana ay qabsadeen dhammaan dhulka Shaam. taariikhdu markay ahayd 70kii dhalashadii Nabi Ciise ka hor waxay Yahuudu isku dayeen kacdoon, si yeeshee kacdoonkoodaasi ma noqon mid meel mara, waxaana ay Roomaaniyiintii ka barbixiyeen Yahuudii dhulkii Falastiin, isla mar ahaantaana waa ay ka maxarimeen, waxaana Yahuudii ku kala fardhismeen Ciraaq, Masar, Suuriya, Koonfurta Afrika, Yurub iyo dhammaanba dhulka uu bini'aadam degan yahay. qodobka xiga ee aan ku soo qaadan doono xalqadeennan ayaa ah furashada uu Islaamku furtay dhulka Falastiin. kala qaybsankii boqortooyadii Roomaaniyiinta kadib waxa ay noqotay Falastiin mid ay ka taliso boqortooyadii Roomaan ee bari ilaa qarnigii 7aad ee miilaadiga ka hor intaanay muslimiintu furan xilligii Cumar bin Khattab radiyallahu canhu wa ardaah. waxaana uu Islaamku ka talinayay dhulka laga bilaabo 639 miilaadiga ilaa qarnigii 11aad ee miilaadiga. muddada ay muslimiintu ka talinayeen dhulka Falastiin waxay ahaayeen qaar oo ogol dadka diimaha kala haysta in si nabad kula noolaadaan iyadoon wax dhib loo geysanayn, khaasatan ahlu kitaabka oo ah Yahuuda iyo Kiristaanka. sababtaa daraadeed diinta Islaamka waxaa qaatay dad aad u badan oo degnaa dhulka, waxaana ay kala guursadeen Carabtii muslimiinta ahayd, waxaana ay Falastiin noqotay dhul Carab degan tahay. sababtuna ma aha furashadu Islaamku furtay laakiinse waa isku milankay dadku isku milmeen iyo dhaqanka suuban ee diinta Islaamka. qodobka xiga uguna dambeeya xalqadeennan maanta ayaa ah duulaankii Muctabileyda ee dhulka Falastiin. gabagabadii qarnigii 11aad ee miilaadiga waxaa Muctabileyda ay ku guuleysteen inay qabsadaan dhulka Falastiin, waxaana dhulkii Shaam uu noqday fagaaro dagaal laga bilaabo qarnigii 12aad ilaa qarnigii 13aad ee miilaadiga. dagaalada oo ka dhexeeyay muslimiintii iyo Kiristaankii, waxaana ay dagaaladaasi ku canahayeen magaca dagaalada Muctabileyda. ugu dambeyntii waxaa dagaalada ku gacan sareeyay muslimiinta xilligii uu hogaaminayay Salaaxudiin al-Ayyuubi, waxaana uu ku guuleystay inuu ka soo ceshado Falastiin Kiristaankii markay taariikhdu ahayd 1187 miilaadiga. sidaa waxay noogu eeg wejigii 1aad ee taxanaheena. waxaan bilaabi doonaa wejigii 2aad ee taxanaheena. wassalaamu calaykum.